Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Rafika Academy. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay, subscribe saar oo la wadaag asxaabtaada. Haddii aad hornooli sii joogtina waad ku mahadsan tahay. Kusoo dhawaaw cashirkeena maanta. Cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay majadiliano baina ya yaya na mwajiri wake. Wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi dhexmari adeegto iyo qofkii ay shaqada usoo doonatay oo ah hooyo. Adeegtadii ayaa soo galaysa guriga, akitisha mlango hodi, ayadoo albaabka qarqaraacaysa ayaa waxay leedahay yaa jooga. Ereyga hodi waa yaa jooga. Maamadii ayaa u jawaabaysa waxay leedahay, ama hooyadii ayaa u jawaabaysa waxay leedahay, karibu nikusaidie vipi, soo dhawaaw sideen ku caawiya ayay leedahay. Yayadii waxay leedahay, ama adeegtadii, natafuta kazi iko kazi ayay leedahay. Waxaan raadinayaa shaqo ee waxa shaqo ah ma jiraan ayay leedahay. Waxaan raadinayaa shaqo ee wax shaqo ah ma jiraan ayay leedahay. Natafuta kazi iko kazi ayay leedahay. Maamadii ayaa dhahaysa waxay leedahay, ndio kuna nafasi ya kazi. Nafasi shaqo ayaa jira. Umewahi fanya kazi wiliga ma shaqaysa ama hor meel ma kasoo shaqaysay ayay leedahay. Yayadii waxay ku jawaabaysaa, ndio nilifanya kazi mahali mengi. Waxaan kasoo shaqeeyay meelo badan ayay leedahay. Waxaan kasoo shaqeeyay meelo badan. Maamada waxay xaqiiqsan rabtaa qofka inay tahay qof howlkar ama shaqada kasaya. Marka waxay weydiinaysaa, hor ma kasoo shaqaysay meelo kale? Ayadana waxay leedahay, waxaan kasoo shaqeeyay meelo fara badan. Ndio kuna nafasi ya kazi. Waxaa jira nafas shaqo. Umewahi fanya kazi. Shaqo wax horaan meel kale ma kasoo shaqaysay ayay leedahay. Yayadina waxay leedahay, ndio nilifanya kazi mahali mengi. Waxaanu kasoo shaqeeyay meelo badan ayay leedahay. Mamada waxay leedahay, lakini familia yetu ni kubwa. Lakini familia yetu ni kubwa. Laakiin reerkeena waa reer weyn ayay leedahay. Laakiin reerkeena waa reer weyn. Oo iyadoo ka wada shaqada sidaa mooda maaha. Reerku waa reer weyn, shaqada laga qabanayana waa shaqo aad u weyn. Yayadii waxay leedahay, hata hivyo niko tayari kufanya kazi. Hata hivyo niko tayari kufanya kazi ayay leedahay. Sidaas oo ay tahay waxaan diyaar u ahay in aan shaqaysto ayay leedahay. Sidaas oo ay tahay waxaan diyaar u ahay in aan shaqaysto. Oo reerka weyn waxay leedahay weyninkiisa dhibaato ma laha. Waxaan diyaar u ahay in aan shaqaysto reerka ama ha weynaada ama ha yaraada ayay leedahay. Hata hivyo niko tayari kufanya kazi. Maamadii waxay leedahay, kwanza niambie majina yako. Marka hore ii sheeg magacaaga ayay leedahay, ama magacyadaada ii sheeg. Kwanza niambie, marka hore ii sheeg majina yako, magacyadaada. Gabadhina waxay leedahay, adeegtadii, Aisha Abdi. Waxay leedahay, waxaa la yidhaahdaa Aisha Cabdi, ama magacayga waa Aisha Cabdi ayay leedahay. Maamada waxay weydiinaysaa, kwanza niambie majina yako. Marka hore ii sheeg magacyadaada. Gabadhana waxay leedahay, Aisha Abdi. Waxaa la yidhaahdaa Aisha Cabdi ayay leedahay. Mamada waxay leedahay, wacha nikuonyeshe kazi utakazoifanya. Sug aan ku tusee shaqada aad qaban doontid ayay leedahay. Sug aan ku tusee shaqada aad qaban doontid. Wacha nikuonyeshe kazi utakazoifanya. Kazi utakazoifanya ayay leedahay. Sug aan ku tusee shaqada aad qabanayso.
oo hawsha waa qof cusub oo bilaabi raba, marka waa in shaqada la kala tuso. Yaayadina waxay leedahay sawa mama, waayahay hooyo ayay leedahay, waayahay hooyo. Mamada waxay leedahay wacha nikuonyeshe kazi utakazoifanya. Waxay leedahay suka aan ku tuse shaqada aad qaban doontid ayay leedahay. Yaayadana waxay ugu jawaabaysaa waayahay hooyo ama sawa mama ayay leedahay. Mama, kazi yako itakuwa kufagia nje na nyumba, kufua nguo, kuosha vyombo na kupiga deki nyumba ayay leedahay. Shaqadaada waxay noqon doontaa xaaqista binaanka iyo guriga, dharka oo la dhaqo, weelasha oo ayagana la dhaqa, iyo guriga oo la nadiifiyo ama lasoo dhaqaasana ayay leedahay. Shaqadaada intaas oo dhan ayay noqon doontaa. Kazi yako itakuwa kufagia nje na nyumba, kufua nguo, kuosha vyombo na kupiga deki nyumba ayay leedahay. Waxay leedahay shaqadaada waxay noqon doontaa xaqista binaanka iyo guriga, dharka oo la dhaqo, weelasha oo la dhaqa, iyo guriga oo asana lasoo nadiifiyo ayay leedahay. Marka shaqadaada waxay ka kooban tahay inta aan soo sheegnay hadda. Yaayadii adeegtadii waxay leedahay sawa tuongee kuhusu malipo. Waxay leedahay waayahay aan ka hadalno lacagta ayay leedahay. Aanu ka heshiina xaqa dhaqaalaha, aan ka heshiino dhaqaalaha ama lacagta. Sawa tuongee kuhusu malipo. Waayahay aan ka hadalno lacagta. Maamada waxay leedahay sawa nitakulipa 10,000. Waxaan ku siinayaa 10,000 ayay leedahay. Waayahay waxaan ku siinayaa 10,000. Waxay yaayada leedahay sawa tuongee kuhusu malipo. Waayahay aan ka hadalno lacagta ayay leedahay. Lacagta aad igu siinaysa shaqada aan qabanayo aan ka wada hadalno. Maamadana waxay leedahay sawa nitakulipa 10,000. Waayahay waxaan ku siinayaa 10,000 ayay leedahay. Shaqadaas aad ii qabanaysa waxaan ku siinayaa 10,000 ayay leedahay. Sawa nitakulipa 10,000. Waayahay waxaan ku siinayaa 10,000. Yaayadii waxay leedahay adeegtadii waxay leedahay haya ongeza 1,000. Bal waxay leedahay wax ku dar haya ku dar 1,000 ayay leedahay. 1,000 ku dar ayay leedahay. Lacagta aad siinayso 10,000 way ku yar tahay malaha. Haya ongeza 1,000 tu. Haya 1,000 oo kaliya ku dar ayay leedahay ama 1,000 ku dar. Maamadii waxay leedahay uchumi ni mbaya siwezi kuongeza. Waxay leedahay uchumi ni mbaya siwezi kuongeza ayay leedahay. Dhaqaalaha aad buu u xun yahay, wax lacag kuma kordhin kara ama ayay leedahay. Marka la yiri 1,000 ku dar lacagta way yar tahay, ayadoo waxay leedahay uchumi ni mbaya, dhaqaalaha aad buu u xun yahay, siwezi kuongeza ayay leedahay. Wax kuma dari kara ayay leedahay. Siwezi kuongeza waxna kuma dari kara, dhaqaalaha aad buu u xun yahay. Adeegtadii waxay leedahay yaya nitaanza lini kazi. Waxay leedahay nitaanza lini kazi. Goormaan bilaabaya ayay leedahay. Goormaan bilaabaya shaqada ayay leedahay. Nitaanza lini kazi. Goormaan bilaabaya shaqada. Maamada waxay leedahay hapo kesho. Berito ayaa bilaabaysaa shaqada ayay leedahay. Hapo kesho. Berito ayaad bilaabaysaa shaqada. Yaayadii waxay leedahay unaweza siku njema. Uwe na siku njema ayay leedahay. Yaayadii waxay leedahay uwe na siku njema. Maalin wacan ayay leedahay. Maamadina waxay ugu jawaabaysaa nawe pia
adigana mid lamid ah. Nawe pia adigana mid lamid ah. Yayada waxay leedahay nitaansa lini kaasi goormaan bilaabaya shaqada ayay leedahay. Hooyada waxay leedahay hapo kesho. Cashirkeena halkan ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay. fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo si aad u heshid casharo kale ee kuwan